qof halka dhaawacuna uu yahay tira intaas ka badan wali dagaal culus ayaa ka socda deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay dhacdooyin argagax leh oo maanta laga soo warinayo deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya iyo sidoo kale dagaal culus oo laba maleeshiyo beelad ku dhex maraya ama wali ka socda qaybo ka mid ah deegaano ka tirsan gobolkaasi ugu soo biro ka mid noqo saaxiibada nagu xiran muuqaalka la garay shirgaro la sii wadaga asxaabta aragtana qaybta falada nagu reeb oo ku maasantahay daawashada la socodka wararka waa hagaag aan ku bilaabay wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada lagu kala magacaabo Qaayib iyo sidoo kale halka kale iyadana lagu magacaabo Xiindheer oo ka tirsan gobolkaasi Galgaduud ayaa waxa warinaya in halkaasi dagaal culus ku dhex marayo laba maleeshiyo beelad oo ka soo kala jeeda deegaanada Qaayib iyo sidoo kale Xiindheer oo ka tirsan gobolkaasi dagaalka ayaa la sheegay inuu shalka ku hayo aanooyin qabiil isla markaana labada maleeshiyo beelad u dhaxeeyo iyada la warinayo in wali dagaalku halkaasi ka socdo dhimashada laba qof oo shacab oo labada dhinac dagaalantay ayaa la xaqiijiyay inay jirto sidoo kale waxa la xaqiijiyay in dhaawac ku dhawaad 4 qofood oo iyaguna ka tirsan labada dhinac ee dagaalamay dagaalkan ayaa salka ku haya aanooyin qabiil oo ka jira deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud waxaana kamid ahay labada qof ee maanta dhimatay aabe labadiisa wiil maalin ka hor lagu dilay ama maalmo ka hor lagu dilay isla deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud aabahan ayaa magaciisa lagu sheegay Cali Axmed Carab waxaana la sheegay laba wiil oo uu dhalay in hore lagu dilay deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud maanta isla isaga ayaa lagu dilay halkaasi kadib dagaal culus oo dhex maray labada maleeshiyo beelad ee ka soo kala jeeda Qaayib iyo sidoo kale Xiindheer dagaalku wali waa socdaa isla markaana ma jiro ama labada garab waxa la warinayaa inay kala helayaan gurmadyo kala duwan oo ka kala imaanaya magaalooyinka Qaayib iyo sidoo kale Xiindheer oo ka tirsan gobolkaasi Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waa idil soo dhaaf waxa uu marti gelinaya dagaal beeledyo culus oo u dhaxeeya maleeshiyaad ka wada tirsan dadka deegaanka waxaana ka dhashay qasarooyin kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh iyadoo saacadda ka dambaysa dhacdooyinka argagax leh laga soo taminayay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ay ahaayeen ama yihiin kuwa sii kordhaya Soomaaliya duleedkeeda ay dagaalo ka dhaceen sidoo kale aaga cabud waaqiyagana dagaalo culus ayaa ka dhacay balanballe iyo sidoo kale qaybo badan oo iyaguna kamid ah deegaanada ka tirsan gobolkaasi Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya iyo dagaalada waayida soo dhaafayeen kuwa joogta ah oo siyaabo kala duwan uga dhacay sidoo kale qaybo badan iyaguna kamid ah deegaanada ka tirsan maamulka Galmudug ay dagaaladu ka soo laalaabanayeen waayida soo dhaafay maamulka Galmudug ee dawladda federaalka Soomaaliya xal rasmi ah u keenay dhacdooyinka argagax leh ka dhacaya deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya isla markaana ma jirto wax waan oo la kala dhaxdhiga labada beelood ee walaalaha ah ee waayida soo dhaafay isku hor fadhiyay aaga Xiindheer maantana dagaalka culus oo ka dhex qarxay wariyada deegaanka ayaa soo wariyay in dhimashada iyo sidoo kale dhaawaca loo kala dadgureynay magaalooyinka Qaayib iyo sidoo kale Xiindheer isla markaana sida ay warinayaan wali ay rasaas u socoto iyadoo la maqlayo daryanka hubka ay soo adeegsanayaan labada garab ee ku dagaalamaya halkaas wali kama aysan hadlin maamulka Galmudug iyo sidoo kale kan dawladda federaalka Soomaaliya dagaalka halkaasi ka dhacay mana jirto cid ku baxday wixii ka soo kordha daawada waxaan ku soo gudbin doonaa wararka iyo sidoo kale muuqaalada kuwan xigan ugu soo biro ka mid noqo saaxiibada nagu xiran muuqaalka la garay shirgaro la sii wadaga asxaabta aragtana qaybta falada nagu reeb waa ku maasantahay daawashada la socodka wararkeena